الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. marka hore aad iyo aad baan idin salaamaya sida wanaagsan caawa halkan ay isugu wada nimi caawa habeen farxad leh maaha in badan iyo badan ayaynu isugu nimi meel qurux badan iyo xaflado badan oo farxad leh caawa farxadiino ma taalo oo dhiigii ayaa suqulqulaya dadyogeeni reer Soomaaliland marka caawa waa habeen aad iyo aad inoogu culus waa habeen adag weeye kol hadii dad kamida dadyogeeni ummadeeni reer Soomaaliland caawa ay in dhimatay ina dhaawac tahay ina caawa aanay u hooyanaynin meel Allah meel hooyadana jirin marka caawa arrinkeenu waxa weeye waa baaq nabadeed waxaan u direynaa dhamaanba cid ay khusayso caawa oo ugu horeysa dawladeena Soomaaliland iyo madaxweynaheena Soomaaliland mar labaadna ay ku xigaan dhamaanba garaadada iyo cuqaasha iyo salaadiinta caawa shirka fadhiya laascaanood midda koowaad waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland gogasha nabadeed fidiseen waa inay ka gungaadhaan wax allaala wixii ay nagu qaadanayso in nabad lagu helayo waa in la sameeyaa maxaa yeelay maanta waqti la dagaalamo iyo waqti qayb kamid reer Soomaaliland dhiigga u daato diyaar uma nihin waxaan ku jirnaa 2023 maanta waqti xabad dambe la qaata ma fiicna marka dawladeena waxaan leeyahay si allaale iyo sidii aynu nabad ku helayno waa inaan ka shaqeynaa mid kale baadan dawladda faray waxa weeye iyo shacab weynaheena reer Soomaaliland ee gudaha iyo dibadda jooga dad ka qaxay maanta ee barakacay waa inaan ka qayb qaadanaa si dadka gargaar u gaarsiin lahayn aqli maaha inaan guryaheena seexano inaan caruuraheena la joogno ayagoo maanta intaas oo muday ka guriyo baxayna qaladoodii ay cidla ay fadhiyaan waxaan dhamaanteen baa inagu waajiba inaan ka qayb qaadano dadyooga barakacay saynu ka qayb qaadan lahayn barakacooda aynu caawin lahayn waxaan leeyahay waan ku soo gabagabeynaya garaadada iyo salaadiinta iyo cuqaasha shiraysa war walaalayaal dagaal iyo dhibaato iyo dhimasho xal ma noqonayso sool waa Soomaaliland dhulku ma guuro ummaduna ma marato wax allaal wixii doona ha dhacaan ummad marateen waligeed lama sheegin oo dadkii hore Ilaahay halaageen isma halaagayo dhulkuna ma guuro war kol hadaan dhulku guureynin ummaduna aanay maranaynin xalku wuxuu ku jira in la wada hadlo ma hadii aan la wada hadlaynin xal iman maayo marka caawa waxaan leeyahay baaqeen waxa weeye inagu halka reer Soomaaliland oo isku duuban baaqeen waxa waa nabadgeliyo iyo nabad in laga shaqeeyo cid allaale cidii miiska iyo nabadda ka shaqeynaysan inaan isbarbar taagno yar iyo weyn cid allaale iyo cidii ka shaqeynaysa dhibta ee ugu horeeyaan dadyoga social media joogaana war waa inaan iska wacdino waa inaan qofka xumaanta wada qabanno waa inaan u sheegno hadii kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta yawmal qiyaamah wayna weydiinay qof allaale qofka xumaan wada tan oo ka sii darantay maanto waxaynu ka hadlaynaa dhimasho aynu ka hadlaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlaayo dunuubta ugu waaweyn waxa ugu waaweyn waa dhimasho qof in la dilaa ciyaar ma aha marka walaalayaal waxaan dhamaanteen baaqayna ku soo gabagabeynaya waar nabadgelyada aynu ka shaqeyno inta dhibta wadana aynu la hadalno dawladeena aynu ku taageerno in ay wadada allaala wadada ay ku helayso xal iyo nabadeed aynu ku garab istaagno aad iyo aad baan idinka mar labaad mar saddexaadba idinku mahadnaqay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh